sooyaalka calanka Soomaaliya iyo waxa uu ka turjumayo muuqaalkiisa oo ay soo qaban qaabisay Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Aqoon-yahano ku xeeldheer taariikhda calanka Soomaaliya iyo qiimihiisa ayaa soo bandhigay macluumaad ku saabsan calanka kaasi oo iftiiminaya arrimo muhiim ah. Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax, gudoomiyaha Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta, ayaa ugu horreyn furay dood cilmiyeedka. marka mar haddii calan la soo hadal qaado mas'uuliyadda koowaad inay jiilka yar ku baraarujiso qiimaha iyo milgaha calanku leeyahay akademiyada ayaa mas'uuliyadda markaa yeelanaysa. war maanta miyaa soo baxay nin oranaya calankii sax ma ahay dib ha loogu noqdo aad iyo aad wax looga xishoodo oo loola yaabo oo laga yaqyaqsado way waxa soo kale waxaynu rabnaa haddaynu Soomaalinahay dhalinyarada baraha bulshada ka shaqeysa war difaaca waxyaabaha qiyamka iyo values-keedina oo calanku uu ka mid yahay waryaaraha haddaan calan weyno dhalinyaro oo maanta la isku nin baa laga sheegay war waxa la isku haystaa macunahayga waxa la isku haystaa hadduu calankii yahay haddaan calan weyno xornimo ma helayn xornimo meesha way ka baxaysaa. taariikhyahanada Soomaaliyeed oo si qoto dheer u darsay sooyaalka calanka Soomaaliya ayaa madasha ku soo bandhigay cilmi baaris ay ku sameeyeen calanka Soomaaliyeed. dunidan aan ku noolahay maanta oo taqriiban 139 dal jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa inta ka tirsan ay yihiin dal waliba maalin ayuu hantiyay madax banaanidiisa ama gobonnimadiisa dadkiisuna iyaga ayaa go'aan ka gaaray sida uu noqon doono calankoodu midab ahaan iyo qaab ahaanba. waxaan leenahay calankan aynu haysano ee buluuga ee xidigta cad ee shanta geesli ay dhexda kaga taalo fikirkiisa iyo qaabayntiisaba waxaa iska lahaa ururka SYL oo ahaa axsaabtii Soomaalida ee xilligaa jirtay kii ugu weynaa. adduunyada maanta marka aan dhex marayo haddaan calanka tunka saarto qofna saylici odhan maayo laakiin inaan Soomaali ahay buu garanaya meeshan adduunyada ka tagaba qolo kastana calankeeda ayaa lagu yaqaanaa wadaniyaduna islaamka ka mid tahay alwadaniyatu min al-islaam. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maka kama bixi lahayn haddaan laga bixi lahayn jacayl uu qabay maka waa meeshuu ku dhashay. in wadankaaga aad jeclaatid oo dhulkaaga jeclaatid waxay ka mid tahay diinta inaad dalkaaga u dhimatid waxay ka mid tahay diinta ayay ka mid tahay. ummadda Soomaaliyeed ummad weligeed caqiido ila ayay ahayd. cidda ku qanci weysay ee damacday maanta intaasoo sano kadib xorriyaddii iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inay shaki geliso maxay naga mudan tahay ma dhagaxaan ku dilnaa ma ceegaan ku dilnaa ma geedaan ka lalminaa maxaan ku samaynaa. ninka waxaan keenay abooyaalo yaa ka dambeeya waryaa iiga jawaaba talow yaa iiga jawaaba ninka ayaa ka dambeeya cadow Soomaaliyeed ka dambeeya wiilka yarka ee wax yaqaan aan la arag meelo ka yimid aan la aqoon taariikh aan lahayn cid ka hadashay mawduucan markuu ka hadlayo wax soo hadal qaaday ka hor aan la arag ya inuu waxaan sheego waa loo dhiibtay waa ra'yi loo dhiibtay Soomaali lagu dilayo lagu kala geynayo colaad la dhex dhigayo shaki la kala gelinayo ee leeyahay war waxaan sidii la sheegayaba ma aha xagga naga dhiga. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.